gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa ayaa habeenkii xalay xarunta jaamacadda Hargeysa ku soo dhaweeyay Dr. Bilal Philippis oo ah caalim ku xeel dheer dhinaca diinta Islaamka. munaasabadan oo isugu jirtay soo dhaweyn iyo muxaadaro uu Sheekh Dr. Bilal Philippis uu u jeedinayay ardayda jaamacadda Hargeysa iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ayaa waxa ay ka dhacday xarunta jaamacadda Hargeysa. gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa Professor Muuse Aadan Axmed oo isagu munaasabadaasi ugu horeynba ka hadlay ayaa waxa uu si diiran ugu soo dhaweeyay Dr. Sheekh Bilal Philippis jaamacadda Hargeysa isagoo ardaydana ku dhiirigeliyay in ay ka faa'iideystaan muxaadarada uu halkan sheekhu ka jeedin doono isagoo xusay in Sheekh Bilal uu yahay nin aad ugu qaaliya dunida islaamka maanta. waxa kale oo halkaas ka hadlay hormuudka kuuliyadda shuruucda diinta islaamiga ee jaamacadda Hargeysa Professor Bade kaasi oo isaga lafdirkiisu Dr. Bilal si aad ugu soo dhaweeyay jaamacadda Hargeysa tibaaxayna ahamiyadda ay leedahay muxaadarooyinka uu ka jeediyo wadamo badan oo dunida. waxaanu sidoo kale ardayda ku dardaaray in nuxurka ay kala baxaan muxaadarada uu halkan ka jeedin doono. waxa kale oo iyaduna halkaasi laga soo jeediyay warbixin kooban oo ku saabsan taariikh nololeedkii Dr. Bilal Philippis. Dr. Bilal Philippis ayaa gabagabadii waxa uu u mahadnaqay gudoomiyaha iyo guud ahaanba dadweynaha reer Somaliland ee sida diiran ugu soo dhaweeyay Somaliland. waxa kale oo Sheekh Bilal Philippis uu xusay in Somaliland ujeedada uu yimid ay tahay sidii ardayda reer Somaliland iyo dhammaan muslimiinta Soomaaliyeed uu ugu soo bandhigi lahaa jaamacad uu leeyahay oo magaceeda la yiraahdo Islamic Online University taasi oo dhigta culumta diiniga islaamiga oo bixisa diblomooyin bilaash ah taasi oo cidii doonta ay ka faa'iideysan karto. waxa gabagabadii uu sheekhu tilmaamay waxa kale oo uu sheekhu sheegay in Somaliland nabadgelyada iyo xasiloonida ka jirta ay tahay mid aad u soo jiidatay jecel yahayna in sida ugu dhaqsaha badan uu ugu soo laabto. gabagabadii waxa uu sheekhu halkaasi ka soo jeediyay muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan waajibnimada raadinta cilmiga diiniga ah iyadoo goobtaasina ay ku sugnaayeen in ka badan 1200 oo qof. dhinaca kalena madaxda jaamacadda Armas ee magaalada Hargeysa ayaa ku qaabilay xaruntooda jaamacadda gudoomiyaha jaamacadda Islamic Online oo socdaal ku yimid dalka kulan ay ku yeesheen xarunta jaamacadda Armas ee magaalada Hargeysa. waxa gudoomiyaha jaamacadda Armas mudane Ihsaan iyo ku-xigeenkiisa mudane Xuseen Maxamuud ay uga xog warameen kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Armas iyo culunta lagu qaato iyo doorka ay kaga jirto jaamacaddani kobcinta waxbarashada daayirta Somaliland. iyadoo geesta kalena gudoomiyaha jaamacadda Islamic Online uu ka xog waramay ujeedada socdaalkiisa. waxay madaxda labada jaamacadood ay ka wada hadleen sidii ay xidhiidh iyo iskaashi ay u yeelan lahaayeen taasi oo la isla afkartay. Dr. Bilal Philippis gudoomiyaha jaamacadda Islamic Online ayaa waxa uu ballan qaaday inay jaamacadda Armas ka caawin doonaan dhinaca buugaagta islaamiga ah iyadoo jaamacadda Armas madaxdeedu ay iyaguna ballan qaadeen martiqaad ay u fidin doonaan mas'uuliyiinta jaamacaddani dhigooda halka gudoomiyaha jaamacadda Islamic Online uu si lamid ah u ballan qaaday.